145 qoys oo laga soo xulay kaamamka ku yaala dowladka degmada Ceelbirde ee gobolka Boqol ayaa waxa maanta deeq raashin ay gaarsiisay hay'adda Taakulo Somali Community oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Tasko. Deeqdan ayaa waxa ka timid hay'adda Danish Muslim Aid waxaana dadkani looga qaybiyay degmada Ceelbirde ee gobolka Boqol. Dadka raashinka la gaarsiiyay ayaa waxay ahaayeen dadyow ka muuqato dhibaato aad u baahsan man helin muddo wax raashin ah. Hay'adan ayaa guntiga u xiraday dadkani qaxootiga oo la dala dhacaya baahiyada kala duwan ee loo gaarsiin lahaa raashin dhameystiran. Markii deeqda raashinka la siiyay ayaa waxa aan mikrofoonka la dhaxmaray qaar kamid ah dadkii deeqda raashinka ee maanta ay soo gaarsiisay hay'adda Tasko oo taakuleen ka helaysay hay'adda Danish Muslim Aid waxaana ay iga warbixiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin in maanta hay'adda Tasko ay soo gaarsiiso deeq raashin oo ka timid hay'adda Danish Muslim Aid. hay'adda Taakulo ee nasiisay raashinka inay noo la wajabaadho oo dhaqaalaha noo siyaadiso ayaan u mahadcelinaynaa. raashin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid intaana waan qaadanay saasaan ugu mahadcelinaynaa. oo joogta xerada qaxootiga hay'adda Taakulo waxayna siisay raashin bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir waan ku mahadcelinaynaa. raashinka hay'adda Taakulo raashin baan siisay haf bariis iyo haf sonkor iyo haf saliid iyo hay'adda Tasko oo taakuleen ka helaysa hay'adda Danish Muslim Aid ayaa waxa ay tahay mid dadaal badan ay ugu jirto sidii bulshada ku nool degmada Ceelbirde iyo deegaanada hoos yimaadaba ay u heli lahaayeen raashin dhameystiran iyo sidoo kale deeq badan waxaana ay yihiin kuwa ku dadaalaya sidii bulshada ay u gaari lahaayeen xaqi ay ku leeyihiin hay'adaha ka howlgala deegaanadan Koonfur Galbeed gaar ahaan hay'adda Tasko iyo hay'adda Danish Muslim Aid oo guntigooda u xidhay sidii reer Ceelbirde ay u heli lahaayeen xaqi ay ugu baahanayeen hay'adaha ka howlgala deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaaliya. hay'adan ayaa waxa ay tahay hay'ad mar walba u adeegta bulshada iyada oo taakuleen ka helaysa hay'adda Danish Muslim Aid waxaana ay tahay tani guul u soo hooyatay hay'adda Tasko iyo hay'adda Danish Muslim Aid waxaana bulshadan ay yihiin mid ku rayaaqay shaqooyinka ay ka haysa hay'adda Tasko oo gacan ka helaysa hay'adda Danish Muslim Aid deegaanada gobolka Boqol. hay'adda Tasko ayaa dadaal badan uga jirta sidii guud ahaanba deeq raashin loo gaarsiin lahaa dadyowga ka soo barakacay dalka gudihiisa isla markaana ku sugan degmada Ceelbirde ee gobolka Boqol maadaama degmada Ceelbirde ee gobolka Boqol ay tahay degmo ka xiran wadooyinkii soo galayay. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Ceelbirde gobolka Boqol.